Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada raacdaya Academy. Dawadayaasha inta badan iyo ardayda qiimaha badan ee Soomaalida ah ee ku xidhan raacdaya Academy. Waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago 5 qodob oo kaa caawinaya sidii aad u qori lahayd chapter 3ga buugaaga ama cilmi baadhistaada. Marka aad tahay arday diyaarinaya digriga ka baxaya, badanaa buug baad qortaa ama cilmi baadhis ayaad samaysaa taasoo ku xidhan qalin jabintaada. Chapterada aad qortay inta badan ama proposalka aad ku dartay ama buugaaga ku darto waxaa ka mid ah chapter loo yaqaano research design ama methodology. Haddaba waxaan doonayaa ardayow marka aad qorayso chapter 3 5 qodob ayaa muhiim ah oo laga rabaa. 5 qodob waa kuwa ka dhigaya chapter 3gaaga ama maxaa la yiraahdaa buugaaga in sidii aad data collectionka u samayn lahayd ama maxaa la yiraahdaa buuga aad xogta u soo ururin lahayd mid kuu fududaada si wanaagsan aad u qorto. At the same time la garto designka aad isticmaalayso, sida aad xogta u soo ururinayso, maxaa la yiraahdaa sample-kaagu nooca uu yahay, sida aad u xisaabisay, sida aad u calculate garaysay iyo sababaha aad u dooratay designkan iyo waxyaabaha la midka ah iyo waxa aad xogta ku soo ururinayso. Haddaba markaad chapter 3 qorayso 5 chapter ayaad 5 qodob waa inaad fahansantay marka hore. Ka hor intaanad bilaabin fadlan isku day inaad 5 qodob mid aad u fahansantahay. Ka koowaad muxuu yahay? Ka koowaad waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano research design. Research designku 3 nooc baa ugu caansan. Kow waa inuu qualitative buyuura yahay. 2 inuu quantitative buyuura yahay oo aan wax kale lagu darin. 2 labadaas sare oo la isku daray qualitative plus quantitative oo loo yaqaano mixed method. Macnaheedu waxa weeyaan research-kaaga qayb waxa design-kaagu noqonaya qualitative, qaybna wuxuu noqonayaa quantitative. Taasoo ku noqonaya marka mixed method. Haddaba mixed method-ku waa badan yahay ilaa 5 nooc bay buugta qaar u qaybiyaan. Research-yada buugta research-ka hadla ilaa 5 nooc meelahaas ay ka dhigaan. Ka hadli maayo waxa loo yaqaano haddeerto mixed method muxuu yahay, muxuu qualitative yahay, muxuu quantitative yahay. Fiidiyo kala jiro aan ka kala saarnay laakiin qaar kale waan ka soo diyaarin doonaa la xiriira mixed method-ka. Laakiin waxaan doonayaa inaan ku fahansiiyo qodobka koowaad waa inaad isweydiisaa waa maxay design-ka ku habboon research question-kayga. Inta badan design-ka ku habboon research question-kaaga waxa jaangoynaya problem-ka aad darsayso. Problem-ka aad darsayso ama hypothesis-ka aad doonayso inaad ka jawaabto ama aad tijaabiso ayay inta badan jaangoynaya. Adigu wax maaha waxaad iska dooranayso. Waa laga yaabaa inaad 2 method ama 2 design oo ku habboon aad kala doorato tirada kana anfacaya ama kana anfacaya. Laakiin had iyo jeeraale markaad literature review-ga dib ugu noqoto problem-ka aad darsayso waxaad arki doontaa design-ka ugu badan ee ay ku diyaariyeen. Kaasa inta badan adigana ku jaangoynaya. Marka sidaa awgeed saa design-ka u doorato marka aad problem-kaaga doorato, marka aad objectives-kaaga doorato, marka aad maxaa la yiraahdaa garato overall ujeedada guud ee research-ka aad ka leedahay. Intaan design-ka dooran dib ugu noqo waxa loo yaqaano literature review-ga ama wixii hore ee laga qoray mawduucan. Dabeetana waxaad arki doontaa cilmi baadhayaashii ka horreeyay design-ka ay ka dhigteen. Design-ka ay isticmaaleen ayaa badanaa adigana ku anfacaya. Haddii qualitative doorteen oo mawduuca qualitative la xiriiro, qualitative baa dooran. Haddii quantitative yahay quantitative, haddii mixed method yahayna quantitative. Badanaa supervisor-kaaga ayaa ku caawinaya adigu maadaama aad tahay arday maxaa la yiraahdaa undergraduate. Qodobka kale muhiimka ah ee isagana aan doonayo inaan aad ogaataa waxa weeye aad aqoon u yeelataa data collection methods-ka waxa loo yaqaano. Waa inaad garanaysaa hababka xogta loo soo ururiyo. Way farbadan yihiin. Haddii qualitative yihiin badanaa interview ama focus group ama observation waxaas la isticmaalaa. Haddii kalena survey baa ugu caansan. Marka data collection-ka xogta soo ururiso waxa muhiim ah iyadana inaad taqaano halka ku sii hoos jira. Waa hadda u fiirso sideedaad xogta u analyze kareen. Haddii qualitative tahay qaab loo analyze kareeyaa. Haddii quantitative tahayna qaab loo analyze kareeyaa. Haddii labadaas oo la isku daray tahayna nidaam loo analyze kareeyaa baa jira. Sidaa awgeed waa inaad taqaanaa nidaamka xogta loo soo ururiyo at the same time loo analyze kareeyo iyo tools-ka la isticmaalo. Way waqtiga la joogo tools baa la isticmaalaa sida SPSS, sida maxaa la yiraahdaa Stata, sida Excel-ka, sida iyo QR-ka studio-ga waxyaabahaas ka mid ah. Marka waa muhiim inaad qodobada garanayso. Qodobka la xiriira waxa weeyaan oo isaguna aad muhiim u ah isagana aad doonayay inaad garataa waa sampling strategy-ga. Population ka soo qaad quantitative research-kaagu
populationkaaga guud waa 10,000 oo qof. 10,000 ee qof sample noocee baad ayaad kaga soo xulan doontaa noocii aad u baahnayd. populationkaagu hadduu sidaa yahay 10,000 oo qof yahay sample size-kaagu waa maxay sample xirfadda aad kaga soo xulanayso sample ku habboon oo matali kara 10,000. ma random sampling ba ma stratified ba ma purposive ba. purposive inta badan waa qualitative-ka. waa inaad isagana aqoon u leedahay oo aad garanayso. waa muhiim, waa mid meesha ku jirta. samplingku 10 ka soo qaad populationkaaga guud waa 10,000 oo qof. 10,000 oo qof baad doonaysaa inaad kaga xulato number. waa inaad garanaysaa hadduu quantitative yahay xisaabaadka la isticmaalo ee lagu xisaabiyo si aad u hesho maxaa la yidhaahdaa cayinad ama dad matali kara 10,000 ee qof. at the same time xogta laga soo ururinayaana ay tahay xog la isku halayn karo. midda la soco marka quantitative kala joogo markastoo sample-kaagu bato waa markasta oo xogta aad ka helisaana ay accurate tahay, biaskuna iyo khalaadka aad gelisaana yaryahay, xogtana la isku halayn karo. taa cagsigeeda qualitative-ka sample-ka la qaataa waa yaryahay, maaha wax badan. wuxuu ku xidhaya wax la yidhahdo saturation. waan ka hadli doonaa waxay ku kala duwan yihiin quantitative sample-ka iyo maxaa la yidhahdaa qualitative sample-ka. video baan kaga hadli doonaa, laakiin labadaas way kala duwan yihiin. marka waa inaad aqoon u leedahay sample-kaaga markasta. waa inaad aqoon leedahay sida lagu xisaabiyo hadduu probability yahay iyo hadduu number probability yahay. ama si kale haddaan u dhigo hadduu yahay qualitative sampling iyo quantitative sampling hadduu yahay. qodobka afraad ee muhiimka ah aan harana u yaragalay waxa weeye marka aad arday tahay chapter 3 aad doonaysa waa inaad garanaysaa maxaa ku habboon daatada aad soo ururisay inaad ku taxliiliso oo ku tartanto. hadduu quantitative yahay waa inaad statistics-ka aad doonayso garato. tusaale ahaan haddaad tirahdo descriptive statistics baan isticmaalayaa oo maxaa la yidhahdaa questionnaire-kaygu wuxuu ahaa Likert scale. descriptive statistics baan isticmaalayaa waa inaad garanaysaa. waad garanaysaa maxaa laga wadaa mean, maxaa loo isticmaalaa, maxaa la yidhahdaa mode, maxaa loo isticmaalaa standard deviation. waa inaad waxaa garanaysaa. amaba maxaa la yidhahdaa inferential statistics hadduu yahay oo tusaale ahaan t-testiga aad samaynayso, chi-square aad samaynayso, correlation aad samaynayso. waa inaad garanaysaa dhammaan horta statistics-kaas naturally waxay yihiin. qodobka labaad sida loo tarjumo waa inaad garanaysaa. waayo dadka akhristayaasha ay hadhow waxaan akhriyi doonaa ma wada hadda statistically good ah, laakiin adigu waa inaad si fiican u garanaysaa inta kugu habboon. marka intaa waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan hadda tools baa la isticmaalaa lagu analyse gareeyo. toolka aad doonayso waa inaad garanaysaa. mid la soco ma jiro inta badan waa dhif iyo naadir qof 3-4 tool garanaya lagagama baahna. waxaa muhiima noloshaada markaad tahay cilmi baarista ama statistics-ka inaad hal tool garanayso waa muhiim. ama Excel-ka oo base oo aad wanaagsan, ama SPSS-ka oo inta badan dadka Soomaaliya aad u yaqaanaan, ama kuwan casriga ah hadda soo baxay waa muhiim iyadana inaad garanayso. marka chapter 3 waa inaad garanaysaa qodobka ka dhargsantay. qodobka 5aad waxa weeyaan akhlaaqiyaadka. halkan inta badan marka la joogo chapter 3-ga ardaygu waxa laga waajiba inuu ku xuso cilmi baaris baad soo samaynaysaa, data soo ururinaysaa. datada waxaad ka ururinaysaa waa dad, waa subject baa inta badan marka experimentiga yahay loo yaqaana. sidee baad u ilaalinaysaa akhlaaqiyaadkii muhiimka? sidee baad qofkan aad xogta ka soo ururinayso naftiisa, sharaftiisa iyo sirruhu kula wadaagay aad u ilaalinaysaa si aan isaga waxyeello u soo gaarin? marka waa laga yaabaa dadkan haddii doonaan carruur ku jiraan, haddii doon dad waaweyn oo xanuunsanaya ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa inay yihiin shirkado. marka waxa weeyaan waa inaad ku qortaa ethicalka, yacni akhlaaqiyaadka iyo moralka ay tahay muhiimka ee researchku leeyahay. waa inaad kuwa kugu habboon. tusaale ahaan inaad ogolaanshiya dalbanayso oo kale haddii carruur yihiin sidaa u dalbanayso. inaad maxaa la yidhahdaa in researchkaagu soo maray haddii ay jirto guddi loogu talagalay ethical tusaale ahaan xagga akhlaaqiyaadka waxaasoo kale jaamacadda aad ka tirsan tahay leedahay. maxaa leedahay ogolaanshiyo inaanad waxba gaadhsiinaynin, no harm, inaad xogta aad dadka ka soo qaadda ilaalinayso. waxyaabahaasoo kale lagaga baahan yahay. marka la isku soo ururiyo chapter 3 markaad qorayso 5taa qodob waa laf dhabarta chapter 3-ga. markaan soo ururiyo kow inaad garanaysaa design-kaagu muxuu yahay. design-ka ku habboon problemka aad darsaysaa waa inaad aqoon u leedahay, waa inaad si fiican u garanaysaa. 2 oo muhiim iyadana waxa weeye waa inaad garanaysaa data collection methodska kala duwan. keebaa ku habboon? mid kasta iska qaadan maysid. tusaale ahaan qualitative baad u yahay researchkaagu iyo design-kaagu. haddaad tirahdo questionnaire baan soo qaadanaya close-ended logic maaha. soo hadda ma aragtid. laakiin haddaad tirahdo qualitative baan ahay, interview baan ahay, why baad interview ku dooratay?
waa muhiim inaad justification ku darto. waa muhiim sidoo kale maxaa la yidhahdaa mixed method way waxaan isku daraya interview iyo waxaan isku daraya waxa loo yaqaano questionnaire iyadana waa qodob muhiim ah. waa inaad taasoo dhan aad maxaa la yidhahdaa ka fikirtaa. waxaa kaloo muhiim ah samplingku waa laf dhabar. way si kala muhiimsan qodobadani. samplingku waa laf dhabar isna. sample-ka aad kusoo xisaabinaysaa runtii aad bay cajiib u tahay. oo halkan maxaa la doonayaa population-ka guud sample-ka ugu samaynaysa. waayo la soco hadduu qualitative yahay sample-ku waa yar yahay. isaga waxa la eegaa saturation, isaga waxa la eegaa ma la gaaray xogtii loo baahnaa. laba eego numberkii inta badan laba eego. hadduu mixed method yahay laba sample baad samaynaysaa. mid waliba waa inay ku caddahay why aad u dooratay sidan iyo sidatan. waa muhiim inaad markaa caddayso. akhlaaqiyadkuna waa muhiim. dadka inta badan Soomaalidu markay cilmi baaris sameynayaan ethical consideration wax muhiim iyagu ma arkaan. wax ma karkarayaan iyagu inay muhiim tahay. laakiin waa qodob fundamental marka la joogo research-ka la joogo. aad baa mahadsantihiin. wixii su'aalaha wixii maxaa la aad fahmi weydo iyo qodobka aad jeceshahay inaan casharada soo socda aan kaga hadlaba commentiga igula wadaag. ha ilaawina fadlan inaad la wadaagto ardayda Soomaalida ah ee u baahan inay aqoontan af Soomaali ku helaan. aad baa mahadsantihiin.